Catooshyare iyo Faadumo Kaftan gabar lagu magacaabo oo baraha bulshada caanka ah sidoo kalena lagu tiriyo inay ka mid tahay fanaaniinta Muqdisho labadoodaba waxaa la sheegay in xabsiga loo taxaabay oo caawa ay ku hoyanayaan xabsi kamid ah kuwa degmooyinka gobolka Banaadir soo dhawaada saaxiibayaal waxaana Cumar Guux xogaha aynu ka helayno labadan shakhsi oo baraha bulshada si weyn looga yaqaano ayaa waxa ay sheegayaan in xabsiga loo taxaabay oo gabaldhicii maanta kadib gacanta ay ku dhigeen hay'adaha ammaanka xilligan ay ku jiraan saldhigga degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Catooshyare waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku jirta baraha bulshada waxaana sidoo kale uu isagu ka mid yahay fanaaniinta Muqdisho oo dhowr heesood oo ka mid ah heesihii hore iyo kuwa gaar uu leeyahay uu qaaday waxaana wararku ay sheegayaan in arinta loo xiray ay sheegayso ama ay tahay arin maalmihii ugu dambeeyayna baraha bulshada siyaabooyin kala duwan looga arkay taasi oo ahayd in afadiisii hore ay kala tageen in uu qabo oo uu weli uusan ka tanaasulin xilligan ay tahay xaas oo qof kale uu qabo waxaa ninkan uu si live ah uu uga sheegay barnaamij markaasi waa barta gaarka ah ee TikTok oo uu isagu kaga qayb galayay oo dad badan ay la saarnaayeen waxa uu sheegay in arintaas weli aysan meelna u dhicin oo afadiisu ay tahay gabadhii ay kala tageen ee xilligan xaaska qof kale ah waxaana sidoo kale jira in arintan loo haysto oo laga yaabo in loo xiray sidoo kale waxaa jira inkastoo uusan ku badnayn arrimaha qabaa'ilada oo dadka gaar ama dadka qaar loogu bartay haddana waxaa jira in maalmihii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan uu uga soo muuqanayay live-afka sida habeenkii inta badan xilliyada dambe xitaa ay dadku wada gaaraan taasi oo qofka ku dhafra hadaladiisa xitaa aysan xakameysnaan karin misna xakameysnayn sidoo kale gabadhan Faadumo Kaftan lagu magacaabo waa sida inta badan dhalinyaradu ay og yihiin waxa ay baraha bulshada ku soo bandhigtaa dansiga ama dheelka qeybihiisa kala duwan oo dhalinyarada kaligii noolka ah ay inta badan u riyaaqaan laakiin anshax ahaan aan wanaagsanayn waxa sidoo kale jirta in taliska booliiska qaybta guud ee gobolka Banaadir weli aysan faahfaahin qabashada iyo xiritaanka labadan shakhsi ee kala ah Catooshyare iyo sidoo kale gabadhan Faadumo Kaftan lagu magacaabo laakiin saacadaha soo socda la filayo inay faahfaahin ka bixiyaan misna ay ka hadlaan saldhigga degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ayaana la xaqiijiyay inay ku xiran yihiin oo la filayo in maalinta birita ah loo gudbin doono xafiiska xiriiraalinta si dacwad loogu oogo isla markaana loo horgeeyo maxkamadda awoodda u leh qaadista dacwadda loo haysto labadan shakhsi ee lagu magacaabo Faadumo Kaftan iyo sidoo kale Catooshyare labadoodaba baraha bulshada ayay ku jiraan waana dadka inta badan live-afka fuula oo dadka siyaabooyinka kala duwan uga warbixiya misna uga hadla arrimaha dalka ka jira iyo xaaladda guud ee dhalinyarada Soomaaliyeed habeenimada xalay barnaamij uu ka qayb galay oo aan halkan ku baahinay ayuu ka sheegay in beelaha qaar oo isagu beeshiisu ay ka mid tahay xuquuqlaan ay ku yihiin dawladda dhexe ee Soomaaliya lamana oga xitaa in muuqaalkaas la baahiyay ee uu kaga hadlayay kuraas la sheegay inay ka maqan yihiin ama uu sheegay inay ka maqan yihiin beeshiisa iyo beelaha kale ee qowmiyadda Jareerweyne in si degdeg ah ay tahay in dawladdu ay u aqoonsato in kuraastaasi siiso misna ay cadaaladda ka shaqeyso intaba wuxuu ku soo koray saaxiibayaal arintana barnaamijyada wararkeena dambe ee idin kugu soo gudbin doona